26 juun waa maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xor ah laga taago ciid Soomaaliyeed 1960kii konton sanadood ba haatan ka soo wareegay markaa 26 juun waana markii Somaliland Protectorate ay xornimadeeda ka qaadatay gumaysigii Ingiriiska dadkii goobjooga u ahaa arintaasi waxaa ka mid ah Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo ah siyaasi diblomaasi weyn oo Soomaaliyeed oo caan ah magaalada Hargeysa ayaan kula kulmay Axmed maxaad ka xusataa bal konton sano ka bacdi maalintaasi 26 juun siday ku timi 60kii والله أحمد بالمركة وغوريسا مدة تتهرر سومالا أي دوريا حرية إلى قاطان وأحزاب بيوكلا بحين مركة وحا حلفاء نغضي لبدي حزب SNL USB مركة بشي فبوري لحدنكي أي دور شهال كان لغا قبطي لبدا حزبها كوكوليستي بارلمانكي مركة بارلمانكو wuxuu magacaabay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo prime minister magacaabay iyo saddex wasiir cali garaad jaamac axmed xaaji ducaale axmed keese iyo xaaji ibraahim nuur afartaa wasiir ayaa la magacaabay marka anigu waxaasu dhacayaan waxaan jiray London baarlamaanka ingiriiska ayaan ka baranayay xeeroosaadkiisa bishii April 30keedii ayaa prime ministerkii iyo saddexdiisii wasiir noogu yimaadeen London anna markaa koorskii waa ay dhammaaday waxaa la socda xogayn oo la socday allah yarxame maxamuud cabdi caraale anuu markaa waan soo baxayay markaa bisha 5teedii baa la kulmayay oo wasiir almustacmalaadka lala kulmayay markaa bisha 5teedii ma Mayba May bisha 5teedii May haa sodonkii April bay noo yimaadeen dabeeto shantii May gelinkii dambe 1960kii haa maxamuud cabdi caraala waxaan ku idhi waa anugu galabta 5tan baxaya bal waxaa lagu heshiiyey soo deg oo ii sheeg 5tii baan meeshii tagay wasaaraddii isticmaarka uu soo deg wuxuu waxaa lagu heshiiyey 26 juun in xorriyadda Soomaaliya la siiyo protectorate ay xorriyaddooda qaataan iyagoo dalbaday inay Soomaaliya israaci doonaan oo taana laga ogolaaday marka waan soo dhoofay habeenkaas maalintii dambena halkan joogay bal warar markaasi 26kii juun 1960kii hadda konton sanadood baa ka soo wareegay sidee bay u dhacday bal xusuustaasi dadka haddii aad sidii damaashaadkii iyo calansaarkii ugu horeeyay dee calan Soomaaliyeed oo xor ah ugu horeeyay oo ciid Soomaaliyeed markaas laga taago horta marka ugu horeysa calanka Ingiriiska hadee saarame marka calanka Ingiriiska galabtaas la dejinayay caada Ingiriisku wuxuu leeyahay meesha calankooda la dejinayo in ay music ku jiro magaraysa xasan ku jiro inay garaacaan macni murugo ku jirto ereygan doonaya waa kaas marka koox waa laga keenay koox kuwa music garaaca caada laga keenay oo kuwaas caada waxaa kaloo Ingiriisku lahaa marka calankooda ay rogaan inay dib u gurtaan calankay wataan aan soo jeesan ilaa 10 tallaabo dib u gurtaan markaa sidaasaa dhacday kooxdaasaa timid oo calankii bay soo rogeen muusiga murugada ah ay tumeen hogol bara waaweyn ayaa nagu daaday dadkii meesha joogday meesha way buuxday halkee bay markaasi Hargeysa waxay ahayd meesha iminka Ibraahim Dheera ka dhisay masaajidka ee loo bixiyey 26 juun laakiin iminka Ibraahim Dheera masaajid weyn ka dhisay markii ay calankii saa u soo dejiyeen ayaa qolo inanka oo yara askara ayaa tagto Kenya saartay calankii saartay saasaa ciid Somaliland markii ugu horeysay ciid Soomaaliya leedahay looga taagay calankaas markaa maxaa dhacay ka bacdi habeenimadiina waxaa la wareejiyay instruments of power yaa wax la yidhaaho yani
waxaa la kala qaatay dokumentigii loola kala wareegaya xukunka magaraysa oo maxamed ibraahim cigaal iyo ninkii chief secretary ahaa barasaabkii hore u dhoofay magaraysa ay la kala wareegeen iyo habeenkii 12 dhacday. marka halkan beerta xorriyadda la yidhahday habeenkaa lafaanteeda xaflad baa lagu qabto markaa calankii laga saaray. halkaana xaflad baa lagu qabto calankii laga saaray. subaxdii dambeda waxaynu ahayn xorriyaddeena haysanay. bal jawigaa ka waran markaasi iyo gabaygii cabdillaahi suldaan halkaasi uu ku sifeynayay oo ka tiriyey iyo jawigii markaasi aad goobjoogga u hayday aad joogtay axmedow sidee bay ahayd markaasi maxay dadku hiyigooda dadku iyo dareenkooda muxuu ahaa. cabdillaahi suldaan horta meeshii calanka lagu rogayay uu lahaa ka nasiib kana saaro ayuu joogo galabtaasuu tiriyey gabaygaas. dadku de waa dadka roobka ku da-ay asdhaqaajinayn farxadda ka muuqata aada yaabaysa weye. jawi wanaagsan dad xoroobay ayaa meeshaa ka muuqday. markii dambe markaad eegto inkastoo markii dambena la israacay laakiin hadda waa tan aad ogtee dib loo soo noqday 50 sano ka bacdi maxaad odhan lahayd guud ahaan munaasabadan aad odhan lahayd axmedow. waxa weeye maalin aynu ku faraxno oo magaraysaa maalintaaynu xorriyaddeena qaadanay maalinta 26 juun soo socota oo in aada iyo aad maalinta doorasho dhacayso oo lagu beegay waana ficneed aada iyo aad bay u ficneed in maalintii doorasho dhacayso lagu beegay 26 juun aad bay u ficneyd. commissionku hadday maalintaas cayibeen way ku haagsanaayeen. waa maalin farxad leh oo reer somaliland farxad u leh. bal haddaba 5tii bishii May 1960 markii dowladdii ingiriiska gaar ahaan wasiirkii mustacmaraadka iyo maxamed xaaji ibraahim cigaal oo markaasi hogaaminayay wafdigii dhinaca somaliland protectorate ay soo kala saxeexdeen in 26 juun ay somaliland xornimadeedii ay ka qaadato dowladdii ingiriiska. hadal uu ka jeediyey markaasi oo BBC da uu warramay maalintaasi 5tii bishii May 1960 maxamed xaaji ibraahim cigaal oo ku aadan xornimada la qaadanayo 26 juun oo haatan 50 sano ay ka soo wareegtay. bal aan idin maqashiino. waxay tahay in la wada maqlay maanta maxay ahayd colonel secretary jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aynu doonaynay inuu dhacay inaad kulligii wada dareensantihiin baan maraynaya. maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxaan maray dowladda ingiriiska awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay yidhaahaan hase ahaatee inbaa meesha ku jirtay waxaa la hubinayay waxaan la doonayo dowladnimada la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaana gacantooda ay gelayso inay tahay iyo in kale la hubsanayay. dabeeto 2 casho horaan masaragnayba baadniinuun arrinku la baarayay dadka meesha jooga iyo dadku sida wax u doonayaan iyo saa loo eegayay arrinku inuu inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibbo arrinku inaga yahay in la baarayay baa. dabeetana markii taasi caddaatay maalintii arbacadii gelinkii dambe shalayto ayuu noo yimi colonial secretary magaalada. dabeetana khudbadda nimka la sheegay ayuu akhriyay. hadalkii waxaa weeye guntiisii bisha 1 Juulaay 1 inaynu dowlad ahaano si aynu walaaladiin Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiis noqday. waxa aad degeysanayseen erayadii maxamed xaaji ibraahim cigaal khudbadiisii uu ku bilaabay waxa uu dabadeedna halkaasi u dhaafay erayo ku saabsan mucaawanada dowladda ingiriisku ay siin doonto Soomaaliya xaggeeda waqooyi markay gobonnimadeeda qaadato iyo amuuro kale oo ku tacalluqa dalkaasi siyaasadihiisa. dabadeedna waxa uu ku dhameeyay hadalladiisii erayo qalbi qaada oo xigmad leh oo uu Soomaaliya farta ugu fiiqay in ay u baahan yihiin shaqo kulul. markaa maanta waddo dheer oo aynu soo maray ayaynu maanta maxay ahayd joognaa madaxeedii. hase ahaatee midkii ka dheer kana adag ayaa imika aynu gelaynaa. dowladnimo loo qayliyaa dowladweyaan doonaynaa la yidhaahaa waa suura gashaa maanta dee naba soo qaylinay helay dowladnimadiina. hase ahaatee ka adag wuxuu yahay ka sii adag ee maanta aynu isaga madaxa la galnay dee helay dowladnimadii. laakiin mas-uuliyad badan iyo dhib badan ayay iyana la imanaysaa. marka iyadii maanta dagaalka kii u horreeyay ayaynu maanta hellaynu weyn garayn ku najaxnay. ka maanta inagu hadhayna kii ka weynaa buu ahaa. waxaa nabiga laga sheegay sallallahu alayhi wasallam iyadoo laga soo baxay dagaal weyn markii laga soo fadhiistay asxaabtii wada daalan oo wada quban oo nin waliba maxay ahayd qoontiisii dhaayo ayuu yidhi waa la yidhi dagaalkii yaraana maanta waynu ka soo baxnay kii weynaana imikaynu soo galay.
asxaabtii wada naxday baa leeyahay markaas leeyahay yaa rasuulullaahi dagaalkan maanta galay mid ka weyn ma aan filaynin ka weyn waa maxay dagaalkan aan soo galay midaynu cadow la dagaalamayni buu haabu yiri kaynu maanta galayna imika galayna inoo hadhayna waxa weeye kaynu nafteena la dagaalamayna wixii xun iyo wixii san nafteena ka celinayna wixii xun wixii sanna ugu diraynay markaas inagii maanta ajnabi aynu dawladda u saaraa ama aynu waddankeena ka kaxayno dhammaynkaas way naga tegaya July maalinta July baynu Soomaaliya israacayna inaguna danteena iyo dalkeeniba iyo diinteeniba aynu talinayna markaana ku hadhay baa hawle haysaaye talada maanta tala weyn weey inaynu isu talin karo wax badan baynu ajnabi noo talin maayo dantayadana qabsan noo talinayna leeynaga baxajnabi inagii amaanta leeno kala tag inaynu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa inay eegay ilaahay waxa inagu la qabtay wuxuu ahaa mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal oo hadlayay bishii May 5 sanadkii 1960 mahadsanid xuseen maxamedow Ahmed Saciid Cige BBC Hargeysa.